asxaabteeda meel walba joogtaan waa mar kale iyo another video kusoo dhawaada asxaabteeda nacawada waxaan jeclahay inaan ka hadlo sport weekend and especially Premier League iyo kooxaha sida u kala horeeyaan weekendigi hore waxay ku dhamaatay horyaalka iyo midkaad soo socdo kooxaha si u kala sareeyaan ka bilaabo Chelsea because ana taageero weekii hore aniga afar April igu qabtay waxaan ku ciyaaraynay Old Trafford sida u jeedaa natiijada iyo halka ay kaga muuqato Man United good season star good ay ku bilowday inshallah ba Chelsea inshallah waa soo laaban doonaa hopefully waxaa ciyaari doonaa Sundayda Leicester City garoonka nagu soo boqonayso Man United waa naga badisay hambalyan leenahay anagana waa sugi doonaa inshallah kooxda kale waatana Liverpool oo bilowday horyaalka waxay ciyaartay last Friday waxay ku badisay 4-1 saa u jeedaan natiijada Liverpool lama celi karo Liverpool sanadkan again waxaan u maleynayaa challenge inuu ka dhaxeeyo ayaga iyo Man City Liverpool 4-1 ku badisay horyaalka way qabatay hal habeen Man City waa imaatay Saturday shani waxba laga qaban karo de Guardiola inuu horyal ka carar maahane uma maleynayo inuu wax koox challenge la ciyaari karto Tottenham 3-1 ay ku badiyaan Aston Villa kooxda championship ka soo laabatay Arsenal away ku badiyaan David Luiz ay ibsanay faniska Arsenal waxay ku leeyihiin sanadkan waa nool yaaba horyaalkana qaanaaba doonayna because David Luiz soo ibsanay xaalkeena Bramber waaye hawada ku soconaa saa u jeedaan hal eber ku badiyaan Newcastle macallin laga ka tagay macallin cusub ciyaartooyda cusub ee hal eber ugu badiyaan marka laakiin inkastoo ay dhahayaan ciyaartooyda waa naga fadhiyaan raggii waaweynaa ma ciyaareenin you will see tomorrow kulanka ugu horeeya Premier League ayaga bilaabayo si u jeedaan Burnley iyo Face Arsenal gurigeeda ku ciyaarayso marka natiijada ka soo baxdo inshallah waa inoo jimcaha dambo Chelsea vs Leicester City Liverpool vs Southampton Man United Monday night ciyaari doonta si u jeedaan waxay la ciyaaraysaa Wolves Manchester City gurigeeda waxay ku soo dhaweey doontaa Tottenham Hotspur marka wixii ka soo baxay natiijadaas faniskayga asxaabteyda aadi salaama aniga waxaa taageeraa Chelsea Football Club adigana hoos comment ku soo qor cidda taageerta iyo kooxda u saadaalinaysa horyaalka inay qaado iyo hayloben meesha uu ku dhamaanayo Premier League si loo kala horeynayo afarta koox ugu sareysa oo Champions League u soo baxaysa marka hoos noogu soo qor inkastoo Premier League ay bilow tahay inshallah every weekend si loo kala badiyay kooxahaas ay u kala sareeyaan ceebtii ka dhacday waan soo dayi doonaa inshallah video gogos wax walba inshallah waan diyaari doonaa marka asxaabteeda waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan hayloobin inaad subscribe saartid like ku qabatid share asxaabtaada la wadaag aad iyo aad salaama asxaabteeda meel walba joogtaan habeen wanaagsan